madaxweyne dadkii baa ku sidaya maxaa doorasho cod iyo qof uu qabalaa rasuul yaro la soo diray baa jeedadka ma ay taagan madaxweyne doorasho qabo magaalada muqdisho oo qura dawladdu miyay xilligan ka qaban kartaa doorasho qof iyo cod ah inaga oo eegayna ammaanka magaalada siyaasad ahaan iyo waliba bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho xitaa marka aynu ka tagno dalka intiisa kale muqdisho oo kaliya dawladdu miyay xilligan ka qaban kartaa doorasho qof iyo cod ah dawade موضوعaas ayaan doonayaa muuqaalkan inaan kugula wadaago oo falanqeyn wataa qaybta dambena waxaad igula wadaagi doontaa aragtidaada haddaba haddii kusoo gaar waxaad jira maragasiin doonta la soco aynu ku bilowno madaxweyne xasan sheekh maxamuud mowduuca siyaasiga ah ee maanta madal walba iyo mar kastaahi uu ka hadlo waa mowduuca la xiriira dalkii inuu ka qabanayo doorasho qof iyo cod ah haddaba inaga oo eegayna duruufaha siyaasadeed ee dalka ka jiraahi muqdisho oo keliya miyay macquul ka tahay xilligan dawladdu doorasho qof iyo cod inay ka qabato aynu eegno amni ahaan magaalada muqdisho waxay ka kooban tahay 20 degmo marka amni ahaan aynu ka hadlayno dawladdu 100% ammaanka magaalada gacanta kuma hayso madaxweyne xasan maanta ma garanayo inta shacab ah ee ku nool muqdisho inta shabaab ah ee joogta iyo inta labada shaati xiran ee shabaab iyo dawladaba ka sharaab caba ee magaalada jooga haddana waxa uu leeyahay waxaan qabanayaa doorasho qof iyo cod ah amni ahaan waxaan ognahay maxaabiis shabaab ah inay ka dhex dagaalameen xabsiga dhexe ee xamar hadda waa maxaabiis yaa u geeyay saanada iyo hubka ay ku dagaalameen ma jirto ilaa iminka cid wax iska weydiisay waxaan ognahay shabaab soo maray kontomeeyo jagboonti in ay ka dagaalameen xeebta liido halkaasna ay ku xasuuqeen dhalinyaro fara badan madaxweyne xasan wax tilaab amni ah oo arrinkaas uu ka qaaday ma jirto waxaasoo idil waxaa ka daran mid ka mid ah qaladaadka amni ee waaweyn oo dawladda muqdisho ay ka gashay dadka reer muqdishona aysan ka dabaaqtamin oo aysan ka kicinaya ahaa in dawladdu ay ku amartay ganacsatada reer muqdisho inay xirtaan kaamirooyin dhalinyaro fara badan oo amarkii dawladda qaadatay ayay kooxda arxanka daran ee khawaarijta ee al-shabaab ay dileen haddaba yaa laha qaladka dhalinyaradaas naftooda ay ku waayeen waa dawladda sababtoo iyada ayaa ku amartay kaamirooyin inay xirtaan haddana waxay sugi weysay ammaanka dadkaasi muqdisho waxaa yaala saanad fara badan oo dawladda maanta aanan u xisaabsanayn oo hub ah waxaa jooga saraakiil fara badan oo dawladdan ka amar qaadan kuwaas oo qaarkoodba sabab u ahaa madaxweyne xasan xukunka mar labaad inuu kusoo laabtay salaadligeed amni ahaan dawladda magaalada muqdisho 100% uma xukunto xitaa haddii mucaaradku ay ogolaadaan dadka doorashada qof iyo codka ka qaybgalaya ee magaalada jooga amnigooda ma damaanad qaadi karto sidee ayuu marka madaxweyne xasan inoo dhihi karaa doorasho qof iyo cod ayaan qabanaya marka dhinaca amniga aynu eegno muqdisho oo qura aynu eegno siyaasad ahaan magaalada waxaa jooga mucaarad xoog leh oo dawladda ka aragti duwan kuwaas oo shalayba uu ku saf ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud labada nin ee ugu tunka weyn mucaaradka maanta waa shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre aynu eegno awoodooda magaalada muqdisho inaga oo ku cabirayna awooddii xilligii mucaaradku waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud saddexdoodaba nin ciidanka taabacsanaa iyo saanadii ay wateen waxay isqabsadeen siinay ilaa iyo wax ka yar 90 kilomitir madaxtooyada ay u jirsadaan waana ciidankii taabacsanaa shariif sheekh axmed xilligii badbaado qaran nin kale ciidankii isaga taabacsanaa waxay saacado ka dagaalamayeen isgoosyada dabka ilaa iyo sayidka waana xasan cali khayre xasan sheekh xilligii mucaaradku waa waxaan ognahay in 2 jeer dawladdu ay ku weerartay marinaayo halkaas oo ay ku difaacayeen waliba saraakiil isaga aanan ku qoonda ahayn markaynu ka hadlayno qaanad ahaan dhinaca qabiilka iyo qabyaalada sidaa laadligeed madaxweyne xasan waa uu ogyahay ragga mucaaradka ku ah awood ahaan inuusan madaxa ka mari karin wax walba uu doonayana inuusan meel marsiin karin markaynu ka hadlayno magaalada muqdisho waana qodob kale oo ay tahay inuu runta isaga sheego madaxweynaha oo uu ayido aynu eegno bulsho ahaan magaalada mid ka mid ah qodobada ceebta iyo fadeexada ku ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud caawana haddii la weydiiyo uusan garanaynin ayaa ah in dawladdiisu tiro koob dhab aysan ku samaynin dadka ku dhaqan magaalada muqdisho waxay ka kooban tahay 20 degmo madaxweyne xasan caawa ma garanayo tirada dhabta ee dadka ku nool magaalada iyo dadka sidii joogtada ugu soo shaqo taga magaalada muqdisho tani waa mid ka mid ah shaqooyinka yaryar ee caalamka dawladaha waaweyn ay u qabtaan dawladaha hoose ee magaalooyinka ka jira haddaba madaxweyne xasan isagoo uusan garanaynin dadka muqdisho ku dhaqan tiradooda dhabta ah sidee ayuu dhihi karaa doorasho qof iyo cod ayaa dalka ka qabanaya yaa doorashada qofka iyo codka ka qaybgali doona majinni masiin iyo saad iyo saadaad iyo suxuunta duusha lama garanayo dad badan oo siyaasadda u dhoondoloola ayaa aaminsan haddii sanadiiqda codadka lasoo dhigo isgoosyada waaweyn ee muqdisho inay ku tartamaan madaxweyne xasan iyo madaxweynaha uganda yoweri museveni dowladnimada soomaaliya hogaaminteeda in museveni dadka ay dooran lahaayeen markaynu eegno sida
koox siyaasadeedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay isugu direen dadka reer muqdisho iyo magaca madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha marka xitaa mustaqbal ahaan siyaasadiisa maanta uma wanaagsanaa in doorasho qof iyo cod aan qabana uu yiraahdo isaga oo dadka marka hore aan ka diyaarsan sambaatiya wanaagsan yaa dhibkooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa siyaasi halyeey ah waa abo Soomaaliyeed waa nin hormuud u soo ah dowladnimada Soomaaliya 30 sano ee tagay dhibka isagu ma aha laakiin dhibka waa dadka ku hareeraysanaya qalday madaxweynaha waaqac dhabta ah ee jirana aanan uga waramaynin ee dadka jidadka ku taagan oo doonaya madaxweyne inay ku doortaan madaxweynaha wuxuu doonayaa dalkan inuu kaga tago taariikh wanaagsan sida ay uga tagi karaa ma aha inuu ka shaqeeyo siyaasad waxa jira hal shay oo dhammaanteen aan isku wada raacsanahay kaas oo keena waalan iyo keena fiyo xitaa uu aaminsan yahay oo ah madaxweynuhu haddii uu tirtiro kooxda baqbaqda iyo bootada iyo baraamirku ka soo haray ee shabaab inuu dalkan kaga tagi lahaa taariikh wanaagsan iyo dhaxal aan ku xasuusan doono 100 sano oo soo socota haddaba madaxweyne xasan haddii uu doonayo xukunka iyo xafiiska inuu sii joogo dalkan uu taariikh wanaagsan kaga tago ma aha inuu siyaasad ka shaqeeyo waa inuu amni ka shaqeeyo isla markaana uu naga dulqaado kooxda ku caanbaxday kooyinta hooyooyinka Soomaaliyeed gunaanadka muuqaalka daawade markaad eegtay magaalada Muqdisho oo qura amni ahaan dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo bulsho ahaanba dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud miyay Muqdisho oo kaliya ka qaban kartaa doorasho qof iyo cod adigoo isticmaalaya caqligaaga saliimka aanan iska indha tiraynin xaaladaha iyo xogaha dhabta ee magaalada yaala